سؤال شاء goorma qofka la xiri kara ama iyo ya xiri kara oo iyo goorma qofka la xiri kara iyo amarka soo saaraya su'aashaadu wadiis aad bay muhiim u tahay horta qofka waxa la xiri kara ama warqadan waxa la soo saari kara warqadan waaranka ah amarka maxkamadda ka soo baxday waxa la soo saari kara oo kaliya marka ay jiraan asbaab macquul ah oo sheegaya dambi inuu dhacay oo sheegaya cid dambiga gaashayna inay eedeysanaha tahay marka hore warqada la soo saarayo ninka garsoore soo saaray iskama soo qoraayo waa inuu koow asbaab ay jirtaa cadeynaysa inuu dambi dhacay waliba dambiga cid sameysana cid warqada loo qoraayo ee eedeysana inay tahay asbaab macquul waa inay jirtaa oo go'aanka lagu qaadan kara laakiin se waa iska soo qoraya warqada oo cid dooran amar maxkamadda soo saaray in la soo xiro taas ma soconayso qaybta labaad ee su'aashaadu waxay tahay ya awood u leh inay runtii amar maxkamadeed amar xarig soo saaraan iyadoo laftigeeda si toos ah waxa uu sheegay qodobka 4aad ee qanuunka habka ciqaabka Soomaaliland uu tilmaamay waxaanu leeyahay waxa awood u leh inay soo saaraan amar xarig waa garsoore awood sharci u leh in runtii soo saaro maxay amarka xarig garsoore awood sharci u siiyay uu soo saari kara waxa kale soo saari kara gudoomiyaha maxkamadda awood u leh kiiska inay ka garnaqado gudoomiyahaasna uu soo saari kara labada qofba ay soo saari karaan laakiin xeer ilaalin ma soo saari karto amar xarig ma soo saari karto boolisna ma soo saari karo wax badan waxa maqlaysaa xeer ilaalinta ay soo jartay waaran ma soo jari karto cidda waaranka soo saartay xariga amarka soo bixisa ee hebel hal la xidha iraahda waa maxkamadu weeyaan dastuurkana saasa ku cad shuruucdana kan saasa ku cad